mas-uuliyiintan ayaa xarunta degmada Doolo ee gobolka Gado kula hadlay boqolaal shacab ah oo isugu soo baxay soo dhaweynta wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ay shalay soo galbiyeen wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka gaarka ah ee Haramcad ee booliska Soomaaliyeed wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo bulshada kula hadlay degmada Doolo ayaa u sheegay in maanta wixii ka dambeeyay wixii asfahan ah oo ka taagnaa labada dhinac la soo afjaray isla markaana shacabku ay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida gobolka Gado maqaayad qof kasta oo siyaasi ah oo xanaaqsan uu igula daaranayay in aan beesha caalamka iyo madaxda Soomaaliyeed ba dhamaan inta caasimada dalka taga aan u sheego maqaayadaas inay xirmatay wixii kale oo aan ka hadalnay tahay dalka Soomaaliya horumarkiisa iyo dawladdiisa looga shaqeeyaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay wasiir Janan uu yahay mid mudan bogaadin isla markaana dawladda Soomaaliya ay soo dhaweynayso maalintan qiimaha badan midnimadan iyo nabadgelyadan waxay ku timid laba sababood midda koowaad waa tanaasul iyo garasho ka timid wasiir Cabdirashiid Janan iyo saraakiishii iyo ciidamadii la socday oo dabcan isagu afkiisa idinkugu sharaxi doono sababtii ku kaliftay inuu tanaasulo inuu u hiiliyo qarannimada midda labaadna waa dadaal dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku bixisay in garashada wasiirka la tabantaabo mudnaanta iyo maamuuska iyo sharafka ay leedahayna la siiyo wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere ayaa u ballan qaaday bulshada gobolka Gado in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyn doonto nabadda iyo wada noolaanshaha shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland hadda kadib gacmo midaysan oo wada jira ayaan rajaynaynaa maamul iyo shacab iyo ciidanba inay u shaqeeyaan xuduudoodana ay difaacdaan shabaabna ay iska celiyaan dawladda Soomaaliyana waxay diyaar u tahay xuquuqda gobolkan oo dhan inay si dhameystiran u bixiso si dhameystiran ay garab istaagto intaasi kadib wasiirada dawladda ka socday iyo saraakiisha ammaanka ayaa kala wareegay ciidamada uu watay Cabdirashiid Janan si loo mariyo hanaanka sharciga ah ee nidaamka ciidamada waxaana sidoo kale uu wareejiyay gaadiidkii dagaalka ay wateen taliyaasha ciidamada ayaa ugu baaqay shacabka in maanta wixii ka dambeeyay la soo afjaray colaadaha isla markaana ay hal dhinac ay ka soo wada jeesan doonaan ayagoo u adeegaya qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan ciidamada qalabka sida anoo afka ciidanka ku hadlay u sheegaya dhammaan inaysan dhimanayn wax laga wada hadli doono taasna ay tahay in nabadda laga wada shaqeeyo amar la baxshay inta kadib amniga waa hal meel buu ka soconayaa amarkiisa iyo shaqadiisa hal meel iyo hal guddi buu ka soconayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in la marin doono ciidamadan nidaamka xuquuqsiinta ciidamada Soomaaliya ciidan qaran oo qaranka Soomaaliyeed matala jamhuuriyadda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee ku noolna guud ahaantood matala taasoo ah runtii sharaf iyo cizi aad iyo aad maaragta u weyn mustaqbalkiina aad u harsan doontaan ubadkiina uu harsan doono idinkuna karaamo iyo sharaf aad weyn maaragta aad ku lahaa doontaan wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay maanta wixii ka dambeeyay ciidamada dhexdooda inay soo afjaraan wixii madmadow ah ee dhexdooda ka taagnaa isla markaana loo baahan yahay in si wada jir ah ula dagaalamaan cadawga ummadda Soomaaliyeed ee kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab waxaana ballan qaadaynaa inaan maslaxadooda ka shaqeyno waxaana u talasulnay shacabkayaga abaaraha iyo colaadda iyo cudurka inta uu isku darmaday inaan ka dayna xabadda afjarno qaybta aan annaka tiimkayga Banyoole joogay aan dhibka ooga haynay caqabada iyo Soomaalinimada iyo wada socodka iyo systemka colaadeedna aan afjarno si hore loogu socdo oo dawladnimada curdunka ah hore loogu sii raadiyo galinkii dambe maanta ayaa wasiirada ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya uu weheliyo wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan waxay soo gaareen magaalada Muqdisho ayagoo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle International Airport Abdullahi Maxamuud Amiin Abdullahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya balad xawo